waxaan soo sii sheegayaa dadku marna waa maamullo marna waa beelo ku celcelinta Puntland ogaada Puntland dadka dega iyo laascaano dadka dega waa isku dad waana marna ma noqonayaan dad kala go'ah dulmina isugu dul qaadan maayaan midba midka kala garabkiisa weeye hadda dood ka duwan doodaha qabtaan ehelnimada waa laga wada hadli doonaa waxaan kaloo jecelahay in halka fariin uga diro maadaama fursad tahay dawladda federaalka ah mas'uuliyadii ka saarnayd laascaanood iyo sool way gabtay uma dhaqmin sidii dawlad Soomaaliyeed gacanta u laaban waxaan u rajaynaynaa inay iska furto oo dalkan badbaadiisa qayb ka ahaato waxaa runtii sharaf weyn ah inaan halka hambalyo uga diro dadweynaha reer laascaanood gaar ahaan jamaahiirta u istaagtay inay xaqooda ilaaliyaan oo dhowraan sharaftooda waxaan si gaar ah rabaa inaan u xuso dowrka ragga ee difaaca dagaankooda ka sokow gabdhaha iyo meediyaha garab istaagay magaalada laascaanood runtii daraawiishtu waxay mudan tahay ammaan maanta waxaan si gaar u ammaanayaa gabdho meediyaha qabsaday oo ugu horreysa raxmiyagay iyo fahiimo qoolje oo runtii muujiyey dagaal joogto ah inay dadkooda ku difaacaan iyo afkooda kabtan ayuubi inta la halmaasha waxaanse oran lahaa dhallinyarada meediyaha ka hadasha xoogaa asluubtana ha ku daran meelaha qaarkood dadku waa ehel la kala tegi mayo laakiin haddii la isku xadgudbo in la iska dhiciyo waa waajib bay la tahay waxaan farayaa dhammaan dawladda Puntland xaalad kasta oo ka soo wajahda walaalahooda laascaanood inaysan hagrasho la'aan aysan ka noqon oo bar walba garab istaagaan waxaan kaloo ku boorinayaa ismada goboladaas ee u istaagay dadkooda ee mideeyay kelmadooda ee mideeyay cududooda ee ka fakaraya mustaqbalkooda waajibkaas weyn ee saaran inuu ilaahay u fududeeyo una sahlo in ay magaaladaasi ku soo noqoto nabadgelyadeedii iyo deganaanshaheedii cid walba oo ka shaqaynaysana waxaan ilaahay uga rajaynayaa inuu halintaa u fududeeyo sidoo kale waxaan kula talin lahaa maamulka Somaliland dalkan iyo dadkan Allah isbaday waa daris waa ahel waa isdaleen taariikhda inaga xumaani wixii shalay ka dhiidhiideen ood oranayseen waan lagu soo duulay ficilkeedii mid lamid haddaa samaysaan ceeb bay inagu tahay weli waa in la ehelnimo hadlaynaa waxaan rajaynaynaa inaad weli wax iskula hartaan oo dib u fiirsataan mustaqbalkiina dadkan kala tegi maayo daris joogtaan ahaaneen waxaan soo sii sheegayaa dadku marna waa maamullo marna waa beelo ku celcelinta Puntland ogaada Puntland dadka dega iyo laascaano dadka dega waa isku dad waana marna ma noqonayaan dad kala go'ah dulmina isugu dul qaadan maayaan midba midka kala garabkiisa weeye hadda dood ka duwan doodaha qabtaan ehelnimada waa laga wada hadli doonaa waxaan kaloo jecelahay in halka fariin uga diro maadaama fursad tahay dawladda federaalka ah mas'uuliyadii ka saarnayd laascaanood iyo sool way gabtay uma dhaqmin sidii dawlad Soomaaliyeed gacanta u laaban waxaan u rajaynaynaa inay iska furto oo dalkan badbaadiisa qayb ka ahaato iyadoo dhiig dhacayo oo dadkii la laynayo hadalkeeda ugu horeeya waxay ahayd sidii dhiigga u joojin lahayd oo nabadda u sugan lahayd inay gardarro garab uga dhigto Somaliland oo tiraado wada hadal baa in la furanaa xaaladda Somaliland baa ergi u magacaabeynaa
arrin dowladda Soomaaliya ku jirtay arrin sax ah ma ahayn xilli laga hadlana ma ahayn markay caga dhigato waxa Soomaaliland la yiraahdo markaas la hadli doona sool iyo sanaag iyo cayl Soomaaliland ka mid ah waa warcad warkaas la cadeeyo u baahan yahay marka la isku waafaqo ayaa la wada hadli karaa laakiin inta hargeysa ay aaminsan tahay inay xoog laas caalamad ku xukumayso waqtiga yaa la iska dhumin ergegeeda yaa waqtiga laga dhumin dalka iyo dadkana yaa dib loo celin intaas oo laha ma ogtahay in internetka shirkadda Golis ay ku keentay uu yahay internetka ugu xawaaraha sareeya dalka iyadoo macaamiisheeda u diyaarisay 3 fiber cable kaasoo gabi ahaanba meesha ka saaraya in marna aanu ka go'in internetku shirkadda Golis waxay diyaar kula tahay inay ku geliso gurigaaga xafiiskaaga iyo meheradahaaga kala duwan garaac 181 oo hadda dalbo internetka ha qabtira baahiyahaaga internet adduunkan aad kula xiriirtid mar walba